carruurta waxa kaa fogeynaya ee keenaya inaanay kula hadal meeshaad joogto inaanay iman bal inay ku nici karaan ma taqaanaa qodobkaasaan ka hadlaynaa maanta bismillahi walxamdulilah wasala allahuma calaa sayidina maxamed wabacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa walaalkiin horseed fadlan si aan u wada soconno muuqaaladan follow iyo like dhah saad u heshaan daraasad ay qortay mu'asasada la yidhaahdo FYI ama Family Youth Institute baan akhrinaya marka waxay sheegtay inay isu keeneen dad khuburo ah in ka badan 3,000 oo carruura bal waxaad sawirataa daraasad looga gol leeyahay in la isu keeno carruur la ogaado halka shay ay ka codsan lahaayeen waalidkood. They brought together more than 3,000 kids. Hal su'aalay weydiiyeen, if you could change one thing from your parents, what would that be? haddaad hal shay ka bedeli lahayd faamilkaaga hooyo iyo aabbo hal shay aad ka bedeli lahayd muxuu shaygaasu noqon lahaa? aqlabiyadda carruurtaasi 80% wax ka badan waxay yidhaahdeen we wish our parents were not stressed, agitated and exhausted when they come home. waxaan jeclaan lahayn hooyo iyo aabba markay guriga yimaadaan inaan inoo iman iyagoo isku buuqsan oo cadhaysan. daraasaddu marka waxay leedahay waalidku markuu guriga yimaado isagoo isku buuqsan, stressed ah, cadhaysan, waxaa xidhma communicationka waalidka iyo awlaadda dhex mari lahaa. sidaa darteed ilmahana inuu kula sheekaystuu rabaa, ilmahana attention inaad siisuu rabaa. waad iska riixin, ana dhaaf, warna dhaaf, orod xaggaa tag, computerka aad, hood taleefonka qaado, waad iska leexin. waxaa xidhmaya communicationkii, wada hadalkii, niqaashkii, wada joogiyaa xidhmaya. taasi maxay keenaysaa marka? fursad ma helaysid adiga awlaaddu aad ku wada sheekaysataan, way kaa tegayaan mar walba. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam iyo wiilkiisa nebi yuusuf calayhi salaam hurdada markuu nebi yuusuf ka soo kacay riyadiisa u sheegay. wuxuu ogyahay aabbihii inuu u soo jeedo attention siinayo. yaa abati inii ra'aytu 11 kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin markuu leeyahay aabbe xalay waxaan ku riyooday xidigahan iyo dayaxan iyo waxaana ii sujuudaya. markiiba waa kawaaninaya odhanaya laa taqsus ruyaaka calaa ikhwatika, ayaddii aad garanayseen aabbe riyadan ha u sheegin walaalaha, maxaa yeelay wuxuu arkayey wiilkiisu maqaam sare inuu ku socdo. sidaa darteed wuxuu barayay human nature ama dabciga basharka inay hinaasa qaadi karto. hinaasaduna maxay keentaa? dil. waana midii ay ku talagaleen. sidoo kale nebi ibraahim qur-aanka ayna baraya calayhi salaam wiilkiisa nebiyullaahi ismaaciil aabbe iyo wiilkiisa wuxuu yidhi let's go take a walk, aan wada soconno, aan lugayno. muxuu sheegay riyadii xalay? innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada tara. aabbe xalay waxaan ku riyoodoo la idsay anuu xagga mindida kaa saaray, what do you think? waa ka wiilkiisuna odhanaya abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin. aabbe waxaad aragtay ama waxa lagu amraysamay. waxaan ula jeedaa barnaamijyadan ku dhex jirnay qoomuluudka iyo waxyaabaha lamid aynu ka hadlayno si carruurta aan ugu sheegno dhahno aabe hooye waxaa jira dad aynaan isku diin ahayn oo raba inay labka iyo dhadiga isku mid kaaga dhigaan, dad raba inay dib u qeexaan nolosha, dad raba inay depression kuga abuuraan. saan uga leexino xalaqada iyo wax isku sheega intaadan sheekh u tegin oodan masaajid tegin guriga waa inay ka bilaabato. sidaa darteed waxaa burburin kara xiriirka awlaadda iyo waalidka waa markuu waalidku yimaado isagoo isku buuqsan guriga. waxaan kula talinayaa waalidka